Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Waxaa magaalada Muqdisho maalintii shalayto ahayd ka dhacay qarax xooggan kaasi oo sababay geerida dad kor u dhaafaya 80 ruux iyo dhaawaca 125 qof, waana suurtagal in tirada dhaawacu intaasi ay ka badan tahay. Qaraxani ayaa ka dhacay X Control halkaasi oo gaari walxaha qarxa laga soo buuxshay uu ku qarxay. Gaarigani ayaa doonayay inuu gudaha u galo magaalada Muqdisho, balse ciidamadii goobtaasi ku sugnaa ayaa ka shakiyay waana ay hakiyeen. Kadib hakintii ay hakiyeen ayaa waxa ay sababtay inuu isla halkaasi ku qarxo. Dadka ku dhintay qaraxani ayaa u badan dhalinyaro iyo arday iyo dad shacab ah oo goobta marayay. Qaraxan oo ahaa mid aad u xooggan ayaa keenay in hilbaha dadka la kala garan waayo, qaarkoodna la garanba waayo wajiyadooda. Dowladda Turkiga ayaa maanta ku dhawaaqday inay soo daabuli doonto dhaawacyada aadka halista u ah ee ku dhaawacmay magaalada Muqdisho qaraxii ka dhacay. Ugaas Cabdiweli Waasuukun ayaa waxa uu tacsi tiraanyele ka diray dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho maalintii shalayto ahayd. Bismillah. Maanta oo ay bishu tahay 29kii bisha 12aad waxaan halkan ku duubayaa tacsi aan tiraanyele oo aan uga tacsiyeynayo 28 bishii 12aad ee shalay shilkii ama qaraxii cuslaa oo ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan X Control. marka koobaad waxaanu leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. intaa kadib waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto, gaar ahaan dadkii sida gaarka ah ay dhibaatadu u gaartay, kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmayba. kuwa dhintayna waxaanu leenahay in alle uu jannadii geeyo oo dembigooda dhaafo, gacanka xaq daran baa dishay. kuwa dhaawacaan alle u boogadhayo. intaasi tacsidii aanu qasadkeedu ahaa inaanu ummadda Soomaaliyeed la wadaagno dhibaatada iyo problemaamka iyo naxdinta bay ahayd. Ugaas Cabdiweli Waasuukun ayaa sidoo kale waxa uu baaq u diray cuqaasha waxgaradka iyo dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana uu sheegay inaysan suurtagal marnaba aysan ahayn in la garan waayo dadka Soomaaliyeed ee qaraxa soo abaabulaya, taasoo uu ku tilmaamay inay suurtagal tahay in marka hore laga hortago si loo baajiyo dadka shacabka dhiigooda iyo naftooda halkaasi lagu goynayo. waxaan leeyahay waxaa dhibaato ah markaynu dib u xusuusanno qaraxii Shaamow, markaan dib u xusuusanno qaraxii Hargaha iyo Saamaha, markaan dib u xusuusanno qaraxii Soobe, markaanu dib u xusuusanno kii aan hadda taagan oo aanu ka tacsiyeynayno oo ah X Control Afgooye. intaasiba markay sidaa tahay inaynu mar walba noqono tacsi u joog oo aanu mar walbaba tacsiyeyno ayadoo la leeyahay kumayaal iyo boqolaal baa dhintay. arrintaas caqligu ma ogola, garashaduna ma ogola. waxaan tala ku bixinayaa qof walba oo Soomaaliya dhankiisa ay ka saaran tahay, ma garanaysaa, waxaa ka saaran inuu xil iskaga saaro ilaalinta naftiisa iyo nafta walaalkii iyo nafta ummadda Soomaaliyeedba. ma daawan karno mana dhegaysan karno mar walbaba in la yiraahdo 500 bay ka kacaysaa dhimashadu, kun baa dhaawacu ka kacaya. aan isimadu ka hadlin, oon odayaashu ka hadlin, oon culummadu ka hadlin, oon waxgaradku ka hadlin, oon aqoon-yahanadu ka hadlin, oon haweenku ka hadlin. arrintaasi arrin mar walbaba in laga tacsiyeeyo keliya ah ku filan tahay ma aha. waa in runta la isu sheegaa. waxaan ku baaqahayaa, waxaan soo jeedinayaa arrinta Soomaaliya culummadu si gooniya ha uga tashato, oo isimadu si gooniya ha uga tashadeen, oo aqoon-yahanadu si gooniya ha uga tashadeen, oo haweenku si gooniya ha uga tashadeen. oo arrintu meesha ay maraysaa waa meel xasaasiya, waa meelaan ku soconno 10 sano soo socota. haddaan sidan ku soconno in la dhaxlayo dalka iyo dadka Soomaaliyeedba ay baabi'ina doonaan Soomaaliya oo dhan. qaylo dheer baan waxaan ku leeyahay Soomaaliyay idinmee, war Soomaaliyay idinmee, war yaa u maqan, war yaa inoo maqan, war yaynu sugaynaa, war qof walba layga dhaadhicin mayo qaraxyada dhacahaya inaan la ogeyn, oo aan odayaashu ogeyn, oo aan isimadu ogeyn,
oo aan hooyooyinku ogeyn oo aan aqoon-yahanadu ogeyn layga dhaadhicin maayo. waa la og yahay wiilasha qarxaya odayaal baa dhalay, hooyooyin baa dhalay, isimaa dhalay, waxaa dhalay dad waxgarad oo kastaa dhalay, waa laga warhayaa. waxaan leeyahay arrinta haddaan inta waaweyn ogeyn inta yaryar baa og, yaynaan sugin intii lala wareegi lahaa dadka iyo dalkaba oo la baabi'i lahaa. arrinta aan wax ka bedelo cod dheer baan ku leenahay aan isu nimaadno, war la isu yimaado, war arrinta wax laga bedelo, war arrinta ma sahlana, war arrinta gacmo kalea ku jira, war aan nolosha Soomaaliya wax iska weydiino, war aan arrintan Soomaaliya nolosha Soomaaliya waxaan iska weydiino, war aan wax iska weydiino, war ismadu ha shireen, waan ku celinayaa, war arrintaasi gooniya intaasi waa Soomaali baan kula talinayaa inaad ka jawaabtaana waa idinka codsanayaa idinka oo iga raaliya. hadda arrinta aan madaxweynaha Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Farmaajo u jeedinaya taladahay waxa weeye mudana madaxweyne dadka badbaadi, xoog ku badbaadi dadka. haddaad xoog ku badbaadin weydo xeel ku badbaadi dadka. xeesha xoogga la galay xeeshu maxay tahay? xeeshu waxay noqonaysaa adigoon wadamo dariisa u danayn, adigoon kuwa shisheeye oo kale iyo sokeeye midna kale oo iyo kuwa nala saaxiiba aan u danayn, adigoon kuwa awoodo waaweyn u danaynin, inaad u hadasho haddaadan dalka ku badbaadin karin awood aad leedahay ama ciidan, haddaadan ku badbaadin karin inaad sidii Afghanistan madaxweynaheeda uu sameeyey oo ahayd inuu cafis guud oo uu dadka ku badbaadinaya dhiigooda inuu sameeyey qolyihii ka soo horjeeday, uuna sameeyey haddii ay kuwo wadamo ku shaabadaysnaa dhibaato weyn ay ahaayeen iyo haddaan kuwa shaabadaysan aysan ahaynba inuu kulli cafis u fidiyey oo uusan kuwa gooniya cafis u badin. waxaan kuu soo jeedinayaa taladan kuu soo jeedinayaa waxa weeye mudana madaxweyne waan kuugu celinayaa dadka awood ku badbaadi dadka. haddaad badbaadin weydana cafis nimanka kaa soo horjeeda oo dadka dhiiggiisa banaystay cafis u fidi, kuwo gaalo u shaabadaysan iyo kuwaan u shaabadaysnaynba dadkaas cafis u fidi, heshiisna ka dalab, badbaadina dadka oo xeel ku badbaadi. waa midaan talada kugu siinayo. ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay kuwii dhintayna jannadii geeyo, in ilaahay uu magaranaysaa jannadii fardowsa geeyo, kuwa dhaawacaana u boogadhayo. intaasaan ku soo gabagabaynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.